العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فدغا وكيكو يتبنات كساب سنة كلمة دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر. waxaynu dambeeyay inaan wax ka tilmaano dadaalkii diineed ee Sayyidina Umar oo ummadda muslimiinta u geystay in loo ilaaliyo diinkooda iyo dhowrida arrinka asaga wax ka soo tilmaanay intaan guda gelin darsiga atarkii shalay labada dhinac Baytul Maqdis ka yimid Sayyidina Umar oo gacan qaaday facalahuma بالدرة عفوا إنه وش أباعي بالرواية الصحراء أو سنجراعين كدبنا يدين ونصوم مري ما ننقصدين ماشى يضع بركة شلي وحان مرام في ملايا إنا وقع عن قاضي لكن ما أباعي ساسا صحة وحاكم بدها وحيابي سيدنا عمر لقد حلي قيمها بدنا inuu ummadda muslimka ku xaraabin jiray ama ku boorin jiray in sunnada ay raacaan diinkana wixii marka ay ka fahmaan ee daahira ay ku dhaqmaan kana fogaadaan su'aasha badan iyo qodqodka aan macna darraha ee keeni kara shubahaadka kicin kara iyo hawlaha mutashaabihaadka in la dhumbado lagu mashquulo aad uga dagaalami jiray asaga qudhigiisu wuxuu kaloo ka digi jiray munaafiqiinta ee quraanka ku maxaabsada ee ummadda quraanka ku dagana uu ka digi jiray arrimaha isku meel buu marin jiray asaga Umar radiyallahu ta'ala anhu ayaa maal asagoo akhrinaya suuratul abasa akhrinaya wa faakihatan wa abban buu soo maray markaas wuxuu yiri famal ab faakiha waan garanay abkum wuxuu yahay kadib isxusto wuxuu in hada lahu at-takallufu وما عليك ألا تدري ما الأب إن قدقدو أب محوية وقت كب حسود دبي استاجته وقدقدتان عن لوبا هنين محاك هاجا حيران وحكومة هذا ما أنت أب معني زجران ويد أما طاقسين أما الدوق أما وحكر بهلا إلى هذه وحكو حرن وهذا مركب مسألة دين ذوق هاجا مشري وربطني ويالك كحر بوري أصدق هذا دقن كاسمين شري mana ogoleen marka in hawlaha noocaasa iyo qodqodka noocaasa la yimaado fitna ka dhalan buarki jiray khalad diineed baa ka iman kara laga gaabsado oran jiray quraanka marka la akhrinayo quraanka in la isku khilaafo muusan ogolay inta la isfahmaayo ee fahmadu joogtay wixii la isku waafaqsan yahay hal la wado ayuu oran jiray quraanka akhriya ma tafaqtum fihi inta wada socotaan wama fa idha ikhtalaftum fihi faqumu haddaad ismaan dhaaftaan hasi murmada joojiye muranka halka ku xidha kana ka cafadhiga ayuu oran jiray wuxuu muslimiintu aad uga hadli jiray oran jiray diinta islaamka saddex baa dumiya ثلاث يهدمنا الإسلام زلة عالم وفي رواية زيغة عالم وجدال منافق بالقرآن وإمة مضلون صدح ذا دين كإسلام كالله قد وقلاب oran jiray midka koobaad waa in caalim waqafa ama mutashaabihaad buu raacay ama asoo aqoon badnayn buu masalada marka uu ka fatwoonayo ku khalday iyo ku gafay aqoon kale dhanka diineed hal ahaadee marka zallatu caalim nin caalima gafki ama inuu asoo weecdo oo leexdo muslimiinta eeda diinkana waa dumiya ummadana waa galaaftaa buu oran jiray waxaa kaloo ummadda baabiya jidaalu munaafiqin bil quraan inaan quraanka aaminsan oo munaafiq oo ka gaal ah حقنا القرآن كي يقانا وأمدي شبهات كينية لمر ماهية دودة هي وضرك تنادى قناة بفرتين جنالي فرتين صفحات بيليهين أتباعي ضد بضم باكحرن ملايين بمتابعين يسود دبتاغن وانا كوفتوان هيا دين تبي كمر ماهية شبهات بيساء وضان أصوش الدينات بكمر ماهيان عاما وحبا قرنا لأن يرى هذا كل عسبات دون كأن دين تأقوم بدن والله هين بعد دبتاغن ومال بشبهات كوكين الشيخ ساسا الليلي سامحان كلين ورضو محاكو قيس أو شبدا محاكو قليي إذن وجدال منافق بالقرآن من القرآن كي يقانا لفظ قيسية معنيه سبرتي أو علماء أصو آخريان أما وناك بأوه الرئي كدمنا فتنوبي وأمد الدين كل الدودة يدنتي سنة آيتها أمد أدوميسيد ودخل من أدو قادد دين كذا أتكلم حسد شهودي سيوحوا أصقوا الرباء قالوا يدونها أتكجدد بأمد أولاد دودية قوليها كلي دين كدميانا وإمة مضلون مدح يطلس يهجانو لونسن وأيقون هودوا الدين لبضع دين كإذا هجانكم مرة دوها اللابو ومدحوينه إنك حماضو
oo talisku inaga kharibmo talisku xusku dayaya in asagu sidoo rabo diintu ay yeesho maxaa yeelay iimaan wanaagsan ma laha diinku oo ugu dhaqmo diintina ma rabo dooni maayan ummadda kuma dhihi karo ummadda wuxuu ku siray madaxweyne muslimaan ahay asaga rabitaankiisii hawadiisii iyo shahawaadkiisii uu rabay iyo kitaabka rabbina waa isdiidahayaan oo siduu rabay diintu ma ogolo siduu rabayna asagu qasab inuu yeelo rabaa marka muxuu sameeyay diintii buu taxriifin wadaad xumo u yeeranaya si khariban baa loogu fasiri waa loo hagaajin waa loo nashnash madaxweynuhu siduu rabay baa looga dhigi diinta bal kan iska fiiri baa sidaan wadaadka iska daaso waa argixisa weeye annaga sidan kuugu dhignay maxay kula tahay waa aimatu mudillu waxa adduunka daysta weeye imisay boqoradu wadaada sheeranay isu keenay Soomaaliya maxay ka rabaa aayar kaarkum ba wadaada lagu xoqanaya kaarkan ba lagu xoq dan kale laga leeyahay ma jiro ama bokod manaha loo diro ama meel kasta laga keeno ujeedadu waxa weeye madaxdaasi sida iyagu rabaan ee edabta daran ee shaqo shaqdaan ah in loo feermeeyo loo hagaajiyo rabaa sayid qutb wuxuu raxmatullaahi tacaala calayh diinta islaamka ee muslimiintu guulaysan mahayaan ilaa hoggaanada iyo dowladaha khaldan ee sharci darrada ku jira wejiga laga xayuubiyo oo sharciyada laga qaado oo bulshada muslimiintu ogaato waxaan inaysan dowladda muslimiina ahayn oo gaalo u shaqeeyaan oo yuhuud dabadhoon u yihiin oo dan islaam ku maqan ilaa bulshada muslimku fahanto weligood wuxuu hagaagi maayaan 500 milyan oo carbeed iyo horta waxa lagu gowracayaa Falastiin caruurteedii haweenka ummaladoox baa ka socda waxaan adduunka weli ka dhicin baa la wadaa maaragtay wax ka dhidhiya ama ka danqanay 500 milyan oo carab iska daa muslimiinta kale ee caajinta jooji raafido 12 qoli aan diinba ku kala tagnay baa u danqanay oo Yemen joogo Xuuthiin la yiraahdo oo adduunkii khalkhal galiyo oo badi oo dhan marinay xidhay oo dhiig iska baar iska daa kuwa waxa lagu dhibaa dambayliya iyagu waa soo gii waradu yuhud is ogaado oo bal caruurta noo badbaadi sheeka barilay baa la wadaa waxan waa la joker baa la idin ciyaarayaa waa alaacib war alaacibta inta noo sameeyso waxaan meesha ka socday 100 maalib la gowracay bal loo badbaadi adoo munaafiq oo yahuudi ah oo carab ah اللي هاد بهاد كعيه وبين وحاسون waxba kama jiraan ayagii iyo marka ninka ku dilahay iyo ka leeda waxiga qabo waa isku waa dameer labadiis dhagood weeye waa isku olog waa isku tol waa aimatun mudilluun way kuwa Umar ka digahayaaba dhaamayba kuwaas dhaamay سيدنا عمر وحورجنا قضيه منكم كهالله هي فساد كدينيده كايمن كراوشه وتلمامي ان اخوف ما اخاف عليكم ثلاثه وحان idinku cabsi badnahay diinkiina inuu fasahaadiyo muslimiina waa saddex منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا بود منافق القرآن كي يقانون مجودة قارئة تضبط القراءة طبعا كما مرة هي مع الشوات وآخرها هي حرف خلد ما يقول ألف يهو منه مقيني يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى بول تذكر لمرمي نك الله ضعف وقوسانية وحولي أنا كأقوم ترتيب هذا أنا waxaan ayniyo nin soo akhristay baan ahay meelaha wadaad isku ordisay adigu xiro howlahan ma jaami prof baan anigu professor baan ahay dabal waxaan ahay doctor baan ahay meel fadhiis xagan ka soo bax muxuu umur maaya liyudilla an-nas 'an al-huda wadada muslimiinta ay hayeen ee toosneed ee lagu soo tarbiyay ay culimo u sheegeen qiimaha badnayd ayuu rabaa shahaadooyinkiisa iyo feer garaacaas inuu kaga bubsado oo uu harawsado dantiisana uu gaaro wax kala ma wado midka labaad wazallatu aalimin nin diinta yaqaano khaldamay walidaalika culimadu yiraahdeen zallatu alaalimi wa zallatu alaalam nin culimo khaldamay oo khalad weyn galay bulshadan ay ku raacday dunida iyo adduunka dhan baa rogmanay wa aimatun mudilluun ninka culimada waxa la rabaa خلد كيسونو يا خلد جزء أو فرع أو دقيق أو ميل هوسا لكن مسائل واوين وكبار أو أصل الدين ضاعت ننضح فرد ومضنا الرفاذي الرقوق كاسا
وماشو عمر كدقوي هوش آد بوغدقو حورن جري لبنن إذن كبقي ماي مسلميني لبنن إذن كعبسن ماي مثل كوباد مؤمن قد تبين إيمانه قف مؤمنة وإسلام نمديسي إيمانك سو عدد بنان كاتشوغا أو كوري هوس بإسلام أو وناق إذن كولاتلين دبكي سنة إذن كحسل هذي كا إذن كبقي ماي مثل لبادن إذن كبقي نحلو ورجل كافر قد تبين كفره nin gaalnimadiisa cadaysto bannaanka istaagayna idinka cabsan maayo waa iska xilli kartaan warma la soo boodayso ladima tilmaam muslimiin gaal warkiisa cadaysto bariisa cadaysto bannaanka taagan hilaac biisa waa cadaystaay hadii biiba u kaban meysaan buuro idinku tagi maayo ninka ida warjeef waa kuma ida ajalahaya ninka ida ajarahaya waxa weeye walaakin akhaafu calaykum munaafiqun يتعوذ بالإيمان ويعمل بغيره حلوة منافق إيمانك مغان قريب معين سنة يسكو إلى إن لي ور مسلم بقى ور واحد قدبن ور يقول دقروين وديقي هاقلت ور محد يقول قالي سيسي ور محد يقرب طابق له وهو قبنايا محون وشقيا ويعمل بغيره غير الإسلام غير الإيمان وكو رقمها هدي هابين وحو كشقين وسو جيدا وشري وريق وإسلام كإن للدميو لما انجحابيو مدل لقويو لما ضلوا فيه وحو اسكو إلالين كم حابسان او شيغان او حبتكو قراعين إسلام بان محترها ياو بل ديب أدونكو أفيري أدونكو إيش صاء مريء هاوشا مركا آد بوغا دقالما جري منافقين تا مسلمين تا قد دقايا الدين كإسلام كا وكدقي جري قد كالدينية دي مسائل عن لوبها إلا قد وكدقي جري شبهات كي شهوات كإن للراعو دين شارك إن اللوجي آد بوغا دقي جري وكي نكي صبيق ابن سهل أم ابن عسل نوال الشيقي التميم الحنذلي يا الله شيء نكا إنه سؤالك ويديو والذاريات ذروا محل لقوضا فالحاملات وقرا محل لقوضا سؤالو ذلك قوة جري عامة أنتو سؤال ما قد أرتوه دونتو كاقل لي عراق بوتشي وعمر بوحدي إله نكا مرقع عن في خصوص ينبضن برادي مهب له جرا مهب له آدي وان حرين وعلمي أنبرن تلكين نلقاس بوها نبضون في السادة وحكو حنا مجري موقت واجد دنبي يا عمر السعودية أصقي يعني مالكو كل مال عمر بسؤال شو يديب والذارث يدرون محل قوضة فالحاملات وقرا وربعانيك ومنك اللي شيء وري قبطة منك اللي شيء هي بقى قبطة رب ما كل لو قبطي عادي بوك قاضي دركو وينا بوك سيبه قلبك بالله بكوردي دردي شيطان بتشسدي باش ودك جنك كغا ساري جري سيدنا عمر جنك الدينات بدك كغا ساري جري عمرنا هادين كليجي كما آدو لبنن يصدحني كما آدان وحبا إلهي عمر اسكوكو آدي سو نين ديرنا دين كتشعل أقوم بدن أمير المسلمين حق جسمنا إلهي بسطي زيادو سي حول يا ابن مسعود عمر ما كان أرقت الله فضل قاعد بسنجريو أصلا كو أمرين با إلهي إقرم مري وسنقول آدم بعضيه بنتو ليجي يعني نلفوين بحق بدون حقنا جيسي والله بالله فوضى آد بقو قراعي عمادي waa ka dhacday dhiig baa qulqulay markaas waa inuu timo dheer leeyahayba Umar wuxuu mooday qoliyo khawaarijta ay siimaha mutaxalliq nabigu inuu yahay kan naftaad manta ka goysid bulaha wuxuu yaa amir almu'miniin haddad idilina oo tartinaad gowracdan ay gowrac nafta dhaaf waa dhintay haddaad daaweynaysan ballan kale waan caafimaad wixii meeshii iga jiray dhibahaya wax weydii uu lahaay oo maantuna aan la karhay uu iga tagay buu riwaayada waa riwaayad muqsal laakiin riwaayada dheer waxa weeye intuu garaacay oo boqol goor garaacay buu haddana uu xiray maalmuu xidhna haddana uu soo daayay markay boogta bogsato xooguu dhiiggiis qabsaday haddana ku celiyay boqol kale markuu daayay buu haddana xabsi ku celiyay saddex goor buu ku sameeyay markuu xooguu bogsado usbuuc haddana uu garaacaa أميرو وانا عارف ماذا ما يقول ماذا عارف ماذا وحي انت اللي شيء هاي هل بركو عارف ماذا ميس مركو دور بريساو قراعه مركو دوحور يا امير المنوان دنطي انت تصيف سوقه وقرتي يقول كدلي ما يقول هذا داو جيدي وان عارف هذا بل مكلا واحد ضمبو ان دريمه هي مجرو دد كان لميد اهي وداريات دربن ضمبي iyo فالحاملات وقرا مجرتو مساسها وراق بو كجوجسدي وحوري ميشو كيمد هلقي تلكي هلوقي
ilaa aan ku qancayno muslimiin haddaan inuu caafimaadayna lalama fadhiisan karo mamnuuc ninkan la fadhiisto karantiil isolation balood baa la geliyay ninka asaga waliya argixisada meesha lagu xidhay Soomaaliya aragnidu halkaas uga la geliyay sanad markuu ku jiray oo wax la hadla uu waayay oo sharafti ka dhacday oo tulkii ka tageen oo ugaaska la iska magacawday Umar markada wuxuu u caafimaaday wixii inta ka dambe hal salaamo hal loo tago hal laga warqabo hal la xiriiriyo laakiin haduu soo celiyo mar dambe wadaariyaati daru maxaa looga jeedaa Allah isoo sheego ma ogoleen Sayyidina Umar hawlaha ummadda in diinka laga fidnayo khaakhuul lagu furo oo shubaad lagu furo oo amniga diineed khatar la galiyo muusan yeeri jirin wuxuu oran jiray sayadu qawmun يجادلونكم بشبهات القرآن أي متشابهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله منهم قاعدة يسيد الرعيد يجبر شديد وحيولي وحد أركض دونتان ملهم بها محدث بها موفق وحياه بدن وكه الله وإيمان دوران أجري والنبي محمد حديث صحيح عن لوجهين أي سيد ودعي وكان النبي يقول يكون في أمتي محدث وعمر لو كان بعد نبي لكان عمر في جامع التربية والقرنيسة قداشي هذه النبي اللي صار عمر بالله صار ما يصور مرني فضايش المناقب تشق وحور وحايدين من دون قولي قرآن كمتشابهات كيس آياتها معناه أنا عضين إن كان قون ديراد الله وكو خلدمك كرو قولي قد الله وطو وكدكتو حجج يبينا دي براهين بالأرك دونتان قوليها يجا محد كذا رينيسان سنة النبي محمد كل الدوضة آيات مزاسة النبي قال فسري حديث كاسان هينا سدا سوي لقن الصحابة وواك النبي قال سدا يلي جري فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله منهم نيك السنة النبي محمد يقاني أحاديث يا أخبارته كتاب القرآن كان يقاني نكاس الله رباه نكاس وحيس اسكو فسرته اسلوته اسكو ميل مريا نين هضرت آيات قون أولبود ودروا لف لبودوي ومرعلا وأنتراري ساسو أورنجري هذه وحور نعبات تنطع يتعمق في الدين استيريح انت iyo mara ku dhaga meel aan mudnayn la isku dhajiyo isku tayrixiso diidi jiray aad buu nooga dagaalami jiray ibn mas'uud wuxuu yiri nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam gadaashi wax ka nacab tanattu iyo tacammuq fi diin Abu Bakar ma arag buu nabiguna hawsha aad buu nacbaabul laakiin aniga ibn mas'uud waxaan u arkaa buu Umar ruux ka daraa ma arag Umar ma ogolayn meel aan qodqod lahayn aad qodqodo meelan isku dhajin lahayn aad isku dhajiso istayrixin iyo isgriifin macna daraa ma ogolayn wardiintu way fududahay tartiib ha lagu dhaqmo wixii la garan waayeen culimada hal la weydiiyo culimo waxay garan waayaanna ha ka shireen oo ha ka tashadeen ra'yina ka soo saareen laakiin wal meel dhan uu ku dhago istayrixiyo ma ogolaanteen burbuna ka xigay iyo geeribu ka xigay shaayada wuxuu aad iyo aad uga digay muslimiinta oo kala dagaalamay gaalada inay isku ekeysiyeen mushaabahatul kufaar gaalada inay isku xoqaan oo isku dhajiyaan oo ku dhaqan noqdaan oo ku weel noqdaan buu aad uga dagaalami jiray maalmaha kamida ayaa waxa uu yimid ninkii loo jeeday al-Harith ibn Muawiya al-Kindi bay Sham ka yimid Muawiya marka amiirka ah oo waalika ashab Umar baana marka geeyo magacaabay idan markaasuu yidhi bar reer Shaam iiga waran seed kaga soo tagtay ahalkii reer Shaam say ahaayeen muslimiinta reer Shaam ka waran wuu ammaanay wuxuu khayr bay ku sugnaayeen nabad halgankii bay wadaan gaala meel bay saareen xagga adduunyadana waa dhaqan yihiin ilaahay buu ku xamdiyey waa shukriyey Umar markuu wanaaga loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi farba ii taagan la'allakum tujalisuna ahla shirk ma laga yaabaa reer Shaamow inaad nasaaradii kristan gaalada la fadhiisataan ahlu shirkiga joogaa de Shaam waa in yaroo yahuudan badnayn iyo nasaaray ahaayeen markaasuu ma ya amiir almu'miniin lama fadhiisano banaankaas muslimiinna waa gooni gaalna goonidiisaas u shabkacsada dimu jizya laga qaado halkaas ku nooliyay wax kan hada jihad baba naga dhaxay wuxuu yiri innakum in jalastumuhum akaltum wa sharibtum ma'ahum ولن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك ابو عمر وفرس دردارنكيس حر شامو هداد قالد الله فريستان لا فريسيغاسي وحو كينيا marka dambe inaad waxaan lacabtaan waxaan la cuntaan walla aqdaam doontaan
haddaydan saa yeelin haddaad saa yeeshaanna waad halaagsamaysaan haddaad ka fogaataan la fadhiisigooda wax la cunkoodana khayr ilinka waayi maayo diinku waa idin hagaagaya gaal iyo muslim markay kala fogaadaan way kala soocan yihiin oo nin walba tiisa uu ku mashquulo la kala xaydo ayaa la bad qabaa maalinka isdhaadhido isnuugto isu timaada gaaliya muslimiin isku milmaan waa maalinka la rugmada diinka islaamka u baaba'o shaam buu tagay sayidina cumar markii lagu wareejinay baytul maqdis ay nasaaro dheen asagan furaha ku wareejinaynaa boobabkoodii iyo qaysaskoodii iyo wadaadahoodii iyo madaxdoodii intii marka laga adkaaday dheen anagu cumar baan u dhiibaynaa abu cubayd waxa ku dhiibameen tilmaamina la siiyay la baytul maqdis ku wareejiyay tawraad injiil noo sheegan adigu ma tiid cumar tilmaantiisa bay hayeen inuu ay aakhir u qaban doono beedka oo laga qaadi doono iyaga cumar baa sidii fariin loogu soo diray wuu tagay madaxweynihii muslimiinta imanaya khaliifkii abu cubayda wuxuu rabaa marka inuu sidii madaxweynaasha u soo labisto oo bahal faras oo quruxsan boqor iska soo dhigay ilaa shaam baa waxaa laga yaqaanaay reer ruumiya waxaasay yaqaaneen cumar ritigiisii caadiga ahaa ee reer khatab lahaayee eed moodaysa in lagu gabraaranayo ayuu shaam la yimid markii loo dhawaaday nimankii boqorada iyo nasaarada loo dhawaaday meeshii cumar lagu sugahayay iyo abu cubayda ka soo horbaxay wuxuu bal faras weyn haddaad diiday oo baqal qiimo badan aad diiday oo gamaan iyo genyaba aad diiday balkan birdow waa faras hajiin ah faras hajiin oo foolxun oo dameeraha wax yar dhaamo kan bal wuxuu barkan fuul kan kor oo ku soco ritigana ka deg kiibu cumar iska fuulay abu cubaydada waa amiirkii gobolka uu ka taladay ka yeelay markuu wax yar socday wuxuu arkay baalku kadlaynaya cumar oo saa u jaglaynaya war baalkan ruuxay uu waalahayaa ritigii hal keenay uu ka degay uu tuur idaafi baalka wax kala ban ismooday markaan hanqalka saa u taagay baalku saa yiri uu kadleeyay ritigii waa hilmaam in carbeed ah oo muhaajir ah waa is iloobayba iga dajiyo uu caydiyay birdoonka banaanka geeyo ritigii hal ay keenay ritigii buu koray waa la socday waxaa lagu baxay laag yar farq yar oo biyo ay ka buuxaan oo ay qasabta intii la xadxayto oo sokistaha la siibtiye kabaha in la sokiskii iska siibay intuu xaytay buu dhex jiray asagoo kabihiisii iyo sokiskii gacanta ku wata ritigiisina hoggaansanayay wuxuu u tagay shirweynihii lagu sugahayay muslim iyo gaalba fadhiyay u tagay hawshiiba abu cubayda ka xanuunsaday wuxuu yidhi maanta waxaad samaysay cumarow arrin aad iyo aad u foolxun oo ku liita indhaha iyo aragtida waddanka dadka ku nool marka la fiiriyo howlaan munaasab ahayn oo madaxweyne wuxuu ku dhacay dee taariikhdii iyo hadalka galay qiimaha badnaaba sayidina cumar ka tegey fasaka fii sadri asaga ka sheekaynaya laabta igu dhuftay cumar markaan intaa ay halkaa xabadku igu dhuftay buuri cumar gacantiisa kugu dhacdan hadda kugu dhamaatay markaasuu cumar awah yamuddu biha sawta caku buuri tollaay low qaalaha ghayruka ya aba cubayda buuri eraygaa maanta aad tidhi nimaan adiga ka ahayn muu dhaho buuri wuxuu ku dhac waa loogaan la aba cubayda waa ka cabsanaya amiinu hadal umma dardaran gooni ah ka yaalla hawlo badan nin qabtay wey wuxuu yidhi innakum aba cubaydu hal baan kuu sheegi innakum kuntum si fiican u dhagaysta adalla annaas wa aqalla annaas wa axqara annaas فأعزكم الله بالإسلام بول هذا عربتهين حقيقة وي هذا عربتهين بول وحد أهان جرتين أذل الناس آدم من دتك أدو ليسن بعد هايدين دتك أدو ليسن أدو اللي بدأ اللي قميستو وحد كنت مرة حسك كين ويري جري حبشية أبرهاس كسوكعي مرة قيصر بايس كان رهم بس كين قميسن مرة وحاب كودي كبردين كقاضي ريف فارس مجوسة مر وحابة إسكا حناقك هو غساسين وعرب أصل كودها النصارى ضبطوها بإسكا كين عيرسان ضد ميدان هاي أذل الناس بنادك الدولة يكونوا ضد الدولة يسن بضاهيدين وأقل الناس نمان كقول الله انقاب سنة ضد يرون ميل كجرة حيو عقت لمرين كرو وعصر بلغا بحيات كأهيدين إن يرون قناع ستاء والسنة كيف لو قور صفر مرنا هالكاس كدع عشام مرنا يمن سوء هذا وهرق قيب نتي قاجر لما قناتا وقار ستاء قبراراتا بعض هيدين واقل الناس تدكو ير بعض هيدين واحقر الناس تدكو كو لا قورسده كو ugu litada هيدين ادبل لدين قورسن جري قيمه ما يدن لهين با يا عرب ويدين جري dad reemiyo isku rucaad oo aan nidaam lahayn oo iska qowleysato meelaas ka ordo oo kolbo wixii la mariyoon amar baa loo waxa ku sameey waa lagu sameyn jiray
saas yeela kii diidana la soo qabto qolyahooda abwaanada intay meelaha tagaan boqorada soo ammaanaan ba xoog la soo siin jiray maxay ahaayeen waxay ahaayeen ma jiro cumar baa ka hadlaya adalla an-naasi wa aqalla an-naasi wa ahqara an-naas muxuu uga tagay sayidina cumar فأعزكم الله بالإسلام إلهي با إسلامك إذا كنت عزي شرف قبنمو واحد كل شيء هو إسلامك فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله رواية صحيحة من تأسوي هداد اسكو ضيدان إن هذا الشرف يقبنمو كل هذه سام وحان إسلام كأهين إلهي ويدن دلينا يا بر برتوريدك عليا هران محاين ديجين ذليلين حقيرين قليلين كدبنا إسلام بعد قاتين قبنيمو عزو شرف ميقانية مقع يديالتين أدونك بالله واتنا شسنا كسوف كوبتين هداد اسكود دايدان يانا شرف كراديسان وحان إسلامي الدين تاكا أهين هي ودلو بيسان برتبت كنو قريسا نفس الشيء نفس الشيء عربات قرمي عزو قدام بيسان مالك كتغين دينك الاسلام كايدين قوميه العربيه ويدلوبين مالك الاسلام كاسكر ريحين يدهين هول كلام wax ku radeen dimuqraadiyo shuuciyo waa dulloobeen meel fog maxakada Soomaali dib u fiiri مالك dimuqraadiyad iyo shuuciyad noo timid ee isku dayday in islaamka iska riixdaan dulligeedin qabsadeen ku taagantii burburkii baad ku kamara baxaysaa inaad idin ka sii dartaba mooyee waxaad ku badbaadi kartaan kaliya inaad u laabataan islaamkiini taariikhda dib ugu akhriya Soomaaliya waxay cizo lahayd markay diinka islaamka ku dhaqmaysay intooda awooddan ay ku dhaqmahayeen dal iyo diin iyo dadba lagu maamulayay xilliga Axmed Guri baa sharaf lahayd oo magac lahaydeen wixii ka dambeeyay xilliga sayidkan magac lahaydeen wixii ka dambeeyay inta dagaalamaysan kitaabka rabbiga ha taliya allahaydeen bad magac lahaydeen maalinkeeda xornimaan qaadanay ee leega idin tashata waa ingiriis iyo talyaani baa diyaariyay leega wax leeyahay ma jirin SWL wax leeyahay ma jirin urura ay diyaariyeen fi Yurub bay ahaayeen oo la rabay in lagu ustuugo oo lagu qariyo halgankii dheeraa oo soo bilaabay muslimiinta ay soo bilaabeen ilaa sayidka hawshiisa iyo daraawiish ay gabagabeeyeen ayagaasaa lagu bedelayay muslimiintu mugta hadday taariikhdu socoto weliga haw socoto hawshii daraawiish baa la dhihi lahaa aan wadno waa in la sameeyo gaab la kala gooyo faasil la sameeyo taariikhda la xiro oo lagu bilaabo taariikh cusub lagu bilaabo leegadii SWL hawsha xurmadoonka caawataabka hebelka dhagax tuur bal lagu keen waxba kama jiraan waxaasoo dhan waa qorshe la dejiyo la rabo in lagu dhumiyo raadkii hore lagu tirtiraya maraykanku markay taariikh samaysteen oo dhan adduunka cusub wuxuu ka bilowdaa hawshii markii la helay America Christopher Columbus Vasco da Gama alaab baa lagu keenay taariikhdii kale laga dhuminaya waxa qoom ma karto inaad baabiiso dumiso taariikhda laga baabiyo laga dunya suuraadkiisu u waayo oo uu noqdo niman abtiri abba lahayn oo kadib meesha doon lagu dhajiyo fiilada meel kasta lagu geliyo halka soo bixal geli barayska duuka Allah maxaad sameeyay waad iska bedel ku kala geli baraysa la idinka dhigtay warmay anagu meel baan ka soo jeednaa abi isir baan leenahay waa soo jireen waa soo yaal waa dhaxal iyo taariikh baa lagu diidan yahay taas lagu diidan arab nafsa shay ila amika sidaas way iska ilaaliye wali hada xukunka murtadiinta ee Soomaaliya jooga ee khudbaya maan wad maqlaysay kii ogaadeen qaraabada maal muxuu lahaa maal lawid wuxuu dadka hormaray ee horumarka sameeyay ee dunida wax ka qabsay waa dadkii diimaha ka tagay balaaga wuxuu ku qarinayo dadka diimaha ka wuxuu ka dhaadhicinaya diinta islaamka iyo shariicadeenu inay ka soo horjeedo horumarka adduunyada iyo ka soo horjeedaa ku leeyahay mar raba inuu ku cadeey laakiin waa culimo hoos fadhiya oo sacabaynaysa waa Xamza Cabdi Barre ninka sheegay aafada in haysato taagan yahay culimo soo urursaday waa culimo ku sheeg waa shayaadiin abaaliso way waa nimanka diinkiina lagu dawgalay marka wuxuu leeyahay dadka hormaray ee adduunka wax ka qabsaday waa dadkii diimahoodii ka tagay dadka diimaha haysteen maxay ahaayeen horta dadku sheegay waa reer Yurub reer galbeed buu sheegayay maxay ahaayeen
waxay ahaayeen niman haystay diimo muxarafa mughayara mubadala kitaabka rabbi lagu sheegay oon horumar ogolayn oon naxariis lahayn oon maamul lahayn oon siyaasad lahayn oon nidaam idaari lahayn oo mawaacidi hawla axkaamta kale axkaam jaaf qariban oo iyagu samaysteen oo bedeleen kitaabka rabbiga kitaabka rabbiga haddii la bedelo afkaarta bini aadamka diin looga dhigo afkaarta waxay ka hor imanaysaa nolosha iyo horumarka dunyada oo dhan bay ka hor imanaysaa oo nimanka ma isku diin baa naad sheegayso nimanka ma isku diin baa nahay diintaad sheegayna waa diintee diinta diidan aadam inay hor maraan oo wax dantooda adduunyada wax taraya ay kasbadaan waa diintee adugu soo goormaad ka tagtay diinta waa horaa laga tegay maxaad u hormari weyday waa horaad ka tagteene xagga nidaamka siyaasigan ka hadlahaya bulshada iyo shucuubta kama hadlahaye nidaamkan siyaasiga mar horaa diinta islaamka ka dhaqaajiseen maxaad qabateen horumarkay gaadheen baa lii sheegay idinku ma keeni karaan waa dabadhoonna meeshaa la geystay yurub galbeed baa laga soo magacaabaa nin walba mushaar buu iska qaataa xogo baa lagu shubtaa waxba ma jiraan weligiin ma idan keensanin nin madaxweynaha oo idinku aad rabtaan weligiin ima xukumin weligiin hadda fi taariikh wixii ka dambeeyey mujaahidiinta muslimiinta ay hore ka dambeeyey waa laydin keenaa un kuraygii uu yidhi anigu kolba hooyada kii guursada waa adeerkay umbaad iska tihiin kolba kii muqdisho idiin fadhiista waa madaxweynihiinu haddayse soomaaliya ugu ildaran tahay xagga nidaamka siyaasiga ilaahay inuu dumiyo oo dowlad islaam noo dhisaan rabbi ka baryaynaa bisha ramadaan 10 dambe lagu jiraaye intuu tan shirkiga ee gaalnimada ku jirta dumiye gaalada daba socota tu wanaagsan oo islaamka ku dhaqanta oo kitaabka rabbiga xurmaysa oo bukhaari iyo muslim taliyaan oo manhajka la soo dhiga miiska ilaahay inuu noo keenan ka baryaynaa waxaan waxba kama bayaan leedin sheeg farq qabiili qabiilada baqti oo hore la xabaalo inuu sidbaranto xabaaladana soo noolaatay oo la kari la ayahay baa meesha lagu hayaa wax kale ma jira way fahmeen gaaladu hadda wax kastaba kaarka uun qabiiladan baa leedin xuqaayaan waxba idin socon maayo dastuur wad maalooda asixiseen gaaladu maxay dhaheen waan taageersan inta xuquuqul insaanka asixiseen xuquuqul insaan dastuurkii waan taageeran ladima dhihin markore maxaa lagaa rabay markore maxaa lagaa rabay laba qodob keliya diinta dimuqraadiyada la yidhaahdo ama calmaaniyada la yidhaahdo janaaxda siyaasiga dimuqraadiga adduunka fahma wuxuu ku dhisan yahay laba tiir keliya labadaa tiir haddii mid la waayo dimuqraadiya ma jirayso diinta islaamka arkaan bay ku taagantahan soo maaha lixda tiir ee islaamka ii sheeg so lagu dhihi maayo lixda tiir ee shanta ee arkaan islaamka sheeg arkaanul iimaanka sheeg arkaanul iimaan lixa iyo arkaanul islaam shana taqaanaan dimuqraadiyadu laba tiir bay leedahay tiirka ugu weynaa ee ugu muhiimsanaa galada agteeda dastuurka Soomaaliya intii lagu daray hadda yaa la asixiyay kaasay taageereen waa maxay waa al-himayatu li huquuq al-afraad wal-insaan baliyada الضمان بحقوق الإنسان حقوق الإنسان كم حلقة وذا روح والبا وحو الربا إن الله سمايو أن لقوه استاجن حرية الاعتقاد كسوهر قلي وحقوق الدمر كاللي سوهس قلي حقوق عرض وحده سوهس قلي خنيسين تسوهس قلي زنا ذا إيا بختي سوهس قلي روح بعضون السمينية وحد حدود رنبا لغو الغينية وحسوهس قلي دينك إن لقى بحي كرو لنا سوق قلي كرو ني والبو حدون السمين كرو مرتدنا متشرو ني اللي ديري كرم متشرو قال يا إسلام وأسمين وحوالبا labada tiiri marka dimuqraad ku taagantay yana ka tagayeen waxa weeye asiyada nadariyatu siyada wax la yiraahdo iyo himayatu xuquuqi al-afraad labada tiir bas weeye wax kale ma bajira asiyada waa maxay asiyada saraynta yaa iska leh shacabka iska leh talada u dambeysay ka godaa shacabka wadankan yaa maamule shacabka iska leh cid u dhiibta u dhiiban gaal haday u dhiibtaan way xukumi ee khadiija haday u dhiibtaan way xukumi أبكو فلان وحكومي أيغاس إرادة الشعب لا إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة الخالق من أدونك كشقين مثل إرادة المخلوقين كلا فهمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما والشعب يفعل ما يشاء ويختار ويمشي
inaad wax fahantaan baad inaad soo taagaysaa Soomaaliya dawladda aad kaga haysaa annaga maanta wasiir badan loo magacaabay adduunka waxa ka socdo waxa way warma ilaahi rabitaankiisa iyo wuxuu doonaa la hirgelini oo adoomihiisi baan nahay haddaan bini aadan iyo basharna mise aadamu wuxuu rabaa la hirgelinaya labada qodob baa la isku haya kaliya mid oo idinku bismillaah yadi dimuqraadiyaddu waxay leedahay nadariyatu shacab asiyadatu lishacab asiya saraynta iyo gowda u dambaysa waxa iska leh shacabka shacabka hadduu islaam doorto xataa looba deynay la socod hadday hadda Soomaalidu inta isku dhaano kitaabka rabbigay baan rabnaa lagama yeelay taangiga la marin kuruus misl baa ku bilaabanay ninka awoodda badan iska leh adduunka waa maxay Mareykan iyo ciidankiisa waxay rabaan baa la rabaa in la meel mariyo laakiin marka hore adoon lagu muqun bal lagu dayay in shubahaadii falsafo lagu akhriyo dadda aad inta walacdood aayar canufta bash ku hayso nadariyad waa rugniga koobaad asiyada saraynta shacabka iskale shacabku maadaama kulligu wax maamuli karinna shacabku waa inuu iska doorto inta u talin lahayd oo la yiraahdo baarlamaanku waa inuu madaxweyne soo saaro ama madaxweyne toos loo doorto taas waa qodobka labaad waa himaayatu xuquuqi al-afraad in la ilaaliyo la dhowro meel la saaro xaqa aadamaha xaqada waa maxay wuxuu asagu rabaha loo yeelo garow lagu daayay gafuur dhaaf nin walba wuxuu rabaha loo yeelo ilmo yaroo hadda lix jir Soomaaliyeed oo aad looga sheekeenayo yiri waxaan rabaa inaan noqdo anigu islaam aan noqdaan rabaa mid yaanu inaan noqdaan rabaa oo waa haleeyo bini'aadanimo ma rababa waa in loo feermeeyo khariisnimadu hadda la sharci garay wada artay way socota Kenya xataa loo galaaday aad maqlaysa waa dhaweey kuwa waa feermeeyeen waxaan yaa been leedin sheegay xuquuqda waa maxay ninku wuxuu doonaa sameeyo naagtu naag ha guursato ninku nin ha guursado wax walba waa furan yahay wax la diidi kara ma jiro maxaa yeelay waa iraadatul makhluuq ha socoto nin walba wuxuu rabaa loo sameeyo waxa ay rabaan ha loo agaasimo maamul ayagu ay sameystaan loo sameeyo wax diin la yiraahdo diinta laga durkiyo maamulka xamza abdi barrabi laga durkiyo maqlaysi laakiin si falsafa oo falsafnimo oo ku buubsanayo oo in dheer garad mooyeen ninka gaabisku fahmin uu sheegaya markaas wadaadin u sacabeynaya wadaadda shaydaan way iska ilaaliya oo shaayada diinkan islaamka maalinkaad ka tagtaan waa duloobaysaan asaga wax ku noqoteen kiina hadda faantamahay muxuu yiraahdaa anu nin carbeed baan ma baahi ajami anu reer bani haashim baan galaa suma dhahdaa reer bani haashim hadday islaamka ka tagaan way duloobayaan الله رسول كسبا شيء أصحاب رسول الله باشيء أبدا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره هذا حقيقة أساسوي حقيقة مالك كتاب كنا كل كتانا ضد نقون إنسان مالك كتكتانا إلهي بإذن قرقاري ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة عليه الرسول كسبا شيء واحد كل عزودين وقرآن كان وكتاب كان إن هل كان تلقى سوق هذا اللون كذا اللي تلك إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس وحلو سدتشيه باسدة إن أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق للناس سورة أحزاب قرآن كان وحلوك إنه إذن مامور نبيكم إذن فسروا إذن كو أقاسيمو ما ماشي عند الله قالوا جلال لقى آخري وهوين كان لقطف حاجة اللي رجعوا كدي من الدستور لصوره بل قال لماذا هذا محاكمة الصومالية كسبت دقيقة واحد كان عاي يتفرسون الله في كدين ترى تعليقين سكوم أنت كبح كم إذ لايك تصار يسا لايك توثق قالوا بيسان الله سعود هذا اسكي إلهية بلاش وتوقس ليسا markuu ka digay hawsha ayada gaalada kumeelankeeda iyo ayaga wax iska dhigideeda iyo ayaga isku xurmeynta isxuqidooda wuxuu ka dhigi jiray la ta'allamu tadiku wadba la ta'allamu ratanat al-ajam fa inna ar-rajula idha ta'allamaha khab ولا تلبسوا لباسهم واخشوا شنو ولا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم
سيدنا عمر وحورن جري أفكا قلاد قالها برننا نينك أفكا قلاد قالها برتا خبا أي فسد هو فسهادا قلبي سوحبا قاله محايا اللغة كستا رقم بي وضعتا الصومالية تاو قاعدة كهذا حقوق إنجليز كبرتو حقوقي ما إنجليز باحي أهيد وطانا ده أول مهما ده في الصومالي ده أول تي عربت أول لغة كستا وحي وضعتا رقم كيدي ثقافات دي مبادئ دي بوضعتا حنبار سنتاي بلاش ما ذلك سيدنا عمر هذا فهمه شهادة رحمة الله وايدين شيخ رحمة الله تعالى وحاني صوحي بدبرتي حول مايا مر والبون كلمة برتو قيب إيمانك الضولة يسيبوا ويقى تقيس أفرطن زنو كنا ولا كياني ولي ما هوش ما برن حتى شرعي كياني نقط ودي كمان دي باسبور بودي باسبور كالصوماليا وتضباطني سديت وسوقت أيوت مسلح لي سديت كاسوت والله صارا وأقدم أن توب بحسمي وعثمان أنت كذا معطي يا وحيد وحكوا عثمان قاعدة كمان دي باسبور بانكوسنا في فريق مرة بقول لأن شغل حقوق التجنس بجنسية دولة كافرة مسألة فيها خطر إنيتاي مسألة أضق إنيتاي أو لو قالوا بكرو أمسنا شغل هو شغل سالر معه أفكا قال ذا النصارى ذا هبرنينا هتنك أفكا ودبر تبوف سهادا واسدا غالبك سيدا بدنوي مسألة سيدا جود بالله الله هي ننصر دون ومسلمين تدن أصو قبنا يأفك جون الله بري ووقائع وغاية الأعيان لا تعم بالله زي مثابة النبي بري الدليل معها الله صعود أكو خلطمنا وحالات خاصة وران حيوب بنوي صحابته صحابهم حيوب بنوي وقت وقت بحين وايد هذه لابد تاي وقائع بلا وقضية جونية بدو جوني أطموي حالات خاصة كانت لا يقاس عليها إلا فيما شاركها في العلة وحسقل أيضا الله يمدهم بلغة الصورة المستثنى من الأصل لا يقاس عليه إلا ما شارك في العلة وقاعدة أصولية أصل قدوح اللي قصوا الريبو شيء أسقى وبدوجون أطمن وحكوا لقد وجين كرنا متجرو أما الله الله ذكر اللهم شيء لو ذاك علة مويه أصل كجدو قالب كوا معي ضدك قال هذا دين تنعلك الله عدو إلهي أفقد الله برتو وخطر أنت بدو ولوف السهادة ولوف النوبة وأجدا بجاجوس بطن النقاني هذا قال يا جاجوس النقطة إن أفقد يقان أيوة يسوع تربية استد بركضها حرننا سيدي وحونا هوعنا ضد أضاق وقلف سنقطة أو تشيرها كبحي كرا كان يصدوه ضها قلينا ما لما يعيد دليل كل ما كف قادا لعنت إلهي باكوسو الدكتيب أورنجري كف قادا ما لا يسوي منيا وكريسمس هذا هو يسين بتقول بابا ذيك يهول ديبا لو جرا هذا هو يسين مالي مالمها كمدا أي وحاوي يمد أبو موسى الأشعري أو عراق قبل كمدا والكاها مدينه يمد مركزه سو حسابتن سرد كان وحي بقالة بحسي وحي أطفو حريص سو حسابته أبو موسى الأشعري وحوته نين نصراني وكراني مامل كدقالها آدو يقاني حسابه أكوتن مصيبة ووتا وحسابية عمرنا ما أوغو حسابته والله سو حري أبو موسى الأشعري وركو دميسترن بو هي هل مر بحيري سيدنا عمر وسنادك انت سان قبطي انت نوان بحي انت نوان هيا انت نوادين لغو ليا سوق سوق بور سوق waxaad dareynaysa maanan fahmini soo qor buur xisaabta buug ku soo qor iyadoo dejisan waraaqa iiken galabkiiba iyadoo waraaqa ila ninkii waa la socday oo dejisan baa Sayyidina Umar loo keenay wuu fi u akhriya Umarna kaatib waa qaarina waa wala yaabay wuxuu sidan ya hawlan kugu deji wuxuu ni gacan xisaabiyahiga hawshan kala tuuray Sayyidina Umar wuxuu waa fiicanta xisaabu loo ma sheegin inuu muslim inuu gaal yahay misaadkuna Umar dhax fadhiya wuxuu yiri xisaabiyahaadu waa nin fiicane buugaag badan oo xisaab xidho Shaam laga keenay oo dawladda Shaam ay soo gudbiyeen umarada Shaam ba iyaalay hay xisaabi igu yarbuuri xuriya amir mu'miniin misaadka ma soo gali karo ninku xisaabiyuhu misaadka ma soo gali karo markaas ajunubun hu majanabu qaba هذا يقان نين أمثال سوق كثيرين حقوق يقان سيدنا عمر من جنابه قبا ما يجنابه ما قبا
محو يهبو بحوله والنصراني ومسلم معه عمر شلي كان قلت عمر وحور ما لك قاتلك الله وربلايها كوكو دعديه مواضع مغني إلهي قول أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آيات حقيقة مرتب فضرب على فخذ ضربة كاد أن يكسرها بول انت مركو يربح يقول في البودده ان كيابي لفته اني اجبته دع كانت عمر يقول عاد فولنك ولا فيق ماي أما موسى الأشعري سود متأول بها وقابك الوارك هاي وندودي دونا مركز سوري ألا اتخذت كاتبا حنيفا ونن حسابي ومسلم مات يكتب لك أدو حسابت أظن كود الرأو قبكو نري هذا يكون عزلاتي نن مسلم وحسابية أمياد ويدي يقول يا أمير المؤمنين ما لي وله له دينه ولي كتابته عمرو نين كان أنا محسكك يا قصي نينك الدين تسألك أطلعنه حساب تاسان كربا وحوري لا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تكرمهم إذ أهانهم الله ولا تدنيهم إذ أقصاهم الله الله تابطي وحال مسألة التولية قد تجر إلى التولي فهمكم فقه سيدنا عمر فرس وحاجرة آيات قالك كهلا يدقن كوذا كهلا ومسلمين تدقن كاسو كل وارك اللود دليشدو كل آية نزلت على المشركين والكفار بين المفسرين تجر بذيلها على عصاة الموحدين أذوق قال باطل لما لها مكا آيات اللي قود دليشني لكن وحال يقول لي هاي دقن حماية اللي عمباري قال هذا بعضهم لقوا أركي وحصاليس وطاي وهذا الدمرات قالوا ذي إسئلالي وي يهدد قالت معهم معه سيدنا عمر وحكد قال الله يا التولية إن قال حل لو ديبو مسلمين تحيلكم مثل كمية لو ديبو مسلمين تتلاوضوا إن قال وحكت ليو ديدين هاي لأنه إن كان مسلمين تكو آمن تحيل أوجود ديبتو المسلمين تكالت تشتو إيه تراهوش أن أقوى المسلمين تواجد بمحن قنية قاع البط كدقان أسيا مسلم دايس قبطان أسيا أهيلين دونتا أسيا حقي سأوتشان شرسان دونتا أسيا حكسان دونتا واجد دنبانا وحيكين أن المسلمين توقع هيليسو وتكو قالوا دو وتولي سميسي موالات مظاهرات سميسو تيبو كدا قال الله وحوري وركان تا جوجسو قال لنا آمنين إلهي بخائي من كل شيء إلهي سيدو آمنت قال إلهي بقوا خائن كيدي سيدو كرامين سيدو حرمين سانمو إلهي إهانيو دليي سيدو سو دويساني نمو ربي فوقيي وفيتيي صدح قضبو كلا الله سكي إلهي بقولي لمن كان خيانة اللقوء هاي ذلي إهانة اللقوء هاي فوقين بالغ الربا إنا سو دويست ممنوع مرضنا كما أركر مركز فهم المسألة وحوري والله يا أمير ما توليته وإنما كان يكتب لي وفرس ماشي باسو تابو فهمي ولي يجعل كمان عند جانب أميرو لكن حب يقري وحكو قري وحكيني كرواق الدنب إن تكور دقته هذا العلماء المسلمين المعاصي وبريده الكفر بدعد واقد الدنب وحكوكي يعني شرك قوي نينك اللغلوق مرة آخر وحد إنسان ريكونفريد لامي وتجد دونا وضيقها ير ودقودر ودد وين بكور ذيا واساس وحقيقته نكاد نينكي وحد إنسان مضع هذا هي محاربة أهري إربدا أهري حقوق حكمة تبيس حقوق السجع يقص عتا وحيرك هول سال الماء وحيرك اللي تاكلوا كيني دونا كفوا بالله وش أقول نقول سيدنا عمر وحاد وجود ذلك شري ومضى وكبريه إلهي درتي وحلو صمي عملك إلهي لو سافي قري عباده خير وحبريد صون صلاة شيء كستو وناقض طماني سؤال درتي وصمي استسكي هلاقاش يقول يهلقوا المغلط اسكي اللي يورن شري مالن بوكي استاجر مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام حلو النبي حلو عمر أمير كأها مدبوا الله الله وحيدي مسلمين إن بدن بان صون ولا أنا آمن سن أنا أركع إنك القرآن كحفظية آخرية إنه إلهي درتي أولد شيء إنه قد أتى علي الزمان
وأنا أرى من قرأ القرآن يريد الله عز وجل وما عنده nin walbo quraanka barto xifdiya oo qaarin noqda waxaan arkayay buu in badan oo soo noolaa inuu ilaahay dirtii u bartay allana ugu dhawaanayo bariha dambe waxa ugu soo kordhay shika waxa ay galaya inay quraanka baranayaan dad iyo qoomam alla aan ula jeedino adduunyo ku raadinaya yuriduna bihi an-nas wa yuriduna bihi ad-dunya ala fa aridu Allah bi a'malikum wa qira'atikum xul quraanka barashadiisa iyo akhrintiisa dad adduunyo ku doonaya oo dana kala ku wata oo ku awr kacsanaya barihan soo batay saan dareemayay buur ay soo muuqatay ee waxaad yeelaysaan amalkiina iyo quraankiina iyo qiraadin ilaahay dartii oo la jeeda wajiga ilaahay waxaan arrimaha diimeed hawlaha arrimaha diimeed markaad barato oo diinta ilaahay ku baro oo quraanka barato oo cibaado wanaagsan la timaad ilaahay dartii oo la imow adduunyada ayada iska iman doonta waa la hubaa hadda dad ilaahay isku fiicnaataan oo ilaahay hawshiisa meel saarto oo wiil fiican noqoto waxaan adduunyada iyo magaca iyo mansabkii maalku u iman doonaa ha noqonin wiilka dhilka caanaha la siiyay asagoo miidiba gaar xumbada laacay odaygu ku yiri warinka arqabe miida dhamme oo nuubur xumbadeeda ku soo dhici doonte inkaad miida dhamayso xumbada iyadoo weyn oo karoor ah bay dhilka dug soo dhiga afkaada iman doonta ayar baad marka fuuqood kala jabsani hadaad marka hore la laacdo caani baa kugu daada miidi baa sharka waad ku qabaysani gafuurkan la geliyo shaarubta xumbada way ka hadlaa hawsh riyo waxa noqon jawaan bura madaxa la gash farxo meesha ka muuqata marka wax wasiila ah qasada ka dhigan waa aathar ilaahay baa kugu karaameynay wallahu baa daballan baan idin qaadi hadda ilaahay dirtii khayrka u diinad u barataan adduunyada helaysaan way iimani magac baad helaysaan maal baad helaysaan mansib iyo darajad helaysaan laakiin idinku hawsha u jeedaha ka dhiganina quraanka ilaahay dirtii u baro ilaahay dirtii u akhri ilaahay dirtii u tuko inaad ku badbaado aakhiro janno ku hesho ilaahay kaaga raali noqdo cadaabad kaga badbaaday caaqibo xun ilaahay dirtii wixii ka dhig waxaan kale allah iska leh wuu imanaya adoon wax dadaala kaaga bixin baa rabbi ku siinaya ku darajaynaya laakiin maalinka diinta aad ka dhigato xarig iyo kaarta aad ku gaarayso hawlo adduunyo rabbi ku ceebayn wad fashil wax looba way sidaasuu ku yidhi abi muusa alashcari ayuu maalmaha ka mida u qoray waraaq oo isna meel amiir ka ahaa haddaynu ka soo waraaq buu u qoray wuxuu yidhi man cumar baa u qoraya hawshaasuu kala hadlayaa ikhlaaska iyo sidqiga inuu ka fogaado sumcada iyo istuskiya lagaa sheego man khalusat niyatuhu kafaahu allahu maa bayna wa bayna annaas ninka niyadiisa saafi gareeya ee qasadkiisa saafi gareeya ee ilaahay dirtii u shaqeeya allah kaga filaada asaga iyo aadama wax u dhaxeeya war aadama waxa kaaga xidhan rabbi baa kaaga filaanaya aadama maxaad ka doonaysaa magac maal darajo qiimayn iyo qadan allah ka keenaya ayagoo sheekh hebel kule ku daboorda aad arki doon ugaas hebel macallin hebel ayagaa iman doona maxaa waa addoommo ilaahay qalbigooda rabbi baa haya ilaahay baa soo jeedinaya meel kale ma jiraan dadkan gacanta yaa ku haya man biyadihi alkhayr man biyadihi alamru kullu baa yaa gacanta ku haya oo allah soo amray ku xidhan tahay maxaa la yidhi ninku ilaahay jeclaado jibriil baa jeclaanaya jibriil waxaa la odhanayaa malaa'igta u sheegay ninka alla jeclaado malaa'igtu waxay amar siinaysaa qolyahana iyagoo ay maamulaan loo soo diray wasiirraha ka yihiin kulli ummadoo dhan baa kugu soo xidhmaysa war xaggeed ka timaadeen mooyi adigu ha is-aafaynin meelayn baadidu kaa jirin ha u doonin baadidadu allay kaa jirtaa alla waxa idin dhexeeya wanaaji oo xidhikaa wanaaji aadamuhu asagaa iman doonaya maalka iyo magacu iyo mansibka kafaahu allahu maa bayna wa bayna annaas waman tazayana linnaasi bigayri maa yaclamu allahu minhu min qalbihi shaanahu allahu caza wajal wasalaam buu u qoray nabadgelyo intaas waa wareegto madaxweyne wuxuu niyadiisa ninkii saafigareeya allah kaga filaada aadamiya asaga wax u dhexeeya ninkii dadka isu qurxiya oo nin fiican iskaga dhiga oo nin khayr badan iskaga dhiga oo qaari iskaga dhiga ilaahina qalbigiisa waxanka inuu ku ogyahay
xumaan buu rabbi qalbigiisu ku ogyahay shaanahu allahu amama annaas ilaah baa ceebaynaya soo wadaaddo waaweynoo shaarku ka dhacay maada arag niman cumaadu ka dhacay sumada arag niman wejigu diirmay sumada arag qalbigooda xumaanta ku jirtuu rabbi ogay subxaana wa tacaala in badanna waa la asturay wayna qaadan waaye niman shalay madaxa lagu watay oo laga dareeray sumada arag xagee ku dambeeyey shariif sheekh axmed aw 2006 ninkay Soomaaliya ugu jeceshay buu ahaa ma taymisa ma waliyahan daarood u kaadi ayagu waagaas aad baan u kacsanayn waliyahan daarood ayagu mucaarad bay iska ahaayeen hawla kala hayay waan garanaysa cudur kala hayay cudurka iska dhaaf laakiin sida kale nin dadnimadiisa iyo diintiisa iyo wanaagiisa ka murmaya waa yaraa ma taymisa ma maanta nimanka dadka loogu nacibiba ku jira dir iyo daarood iyo Soomaali oo dhanba isku soo qabo qalbigaada rabbi wuxuu ku ogyahay waaga dambanaanku keenaya qalbigiina hagaajiya nadiifiya waxaan baqtiga ku jiraan iska saafi garaya dantiina iyo baahidina rabbi weyna u sheegta aadamuhu ayaga iman doon xumbo weeye rabbi baa keenay Sayyidina Umar dadaaliisa waxa kamid ahaa shacairta guud in aad iyagun loo ilaaliyo qaybna waan ka soo hormarinay inaan qaybtan maanta gabagabiyaan isku dayaa insha Allah ta'ala oon kadib aan hal fadhiyo hado salaado kale aad buu ugu dadaali jiray si gooni ah iyo si gaar ahayd buu ka hadli jiray dad badan buu ku garaacay wareegtooyin badan buu ka soo saaray ilaa waagi dambe uu yiri la hadda fil islaami liman taraka salah islaamka dheef kuma laha muslimna ma aha ninkii salaad ka tagay war salaada ku dadaala salaada ninkii ilaaliya diinki intiisi kale uu ilaalin buu oran jiray ninkii dayacana waxa kale uu ka sii daran yahay wuxuu oran jiray cura al-iimaan arba'un tirarka ama guntimaha islaamku waa afar as-salaatu waz-zakaatu wal-jihaad wal-amaana afarta qodob buu islaamka guntimiisa waaweyn waa afar salaado lagu dadaalo la tukado zakado la baxsho iyo al-jihaad fi sabiilillaah jidkiisa lagu dagaalo diinka islaamka la difaaciyo muslimiinta iyo wal-amaana iyo aamin aan noqoto حقاضي حقنا إنك لا تقانو وحي لجودي ولجو آمن نفط هذا يمال كذا دين تبع هذا آمن قطع وقاين نقول روح عدو أمانة يلون واي هذا إيمان مجرو لا إيمان لمن لا أمانة له أيضا سيدا تمر كآد وحقود ده وكاله مساجد إن الله دسو لواسعية وكين مسك النبي محمد كعلي ديمي دسي ديب قدمية وينية بلادية جمعة كستا ويقول مساجد إن لا برفونية ولا عرفية ولا قيتية ولا أنسية أيو أمر شري آد بهوش وجود ده الزكاة صومك حجك هوش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعائر الدين ودان وحكر دقيق هذا أنا سوكو بكرين إنا وحكتها تابتون من أقول لك عليه موين سيدنا عمر هوش بقول فردي بيقبانتي بقول فردي عطا لباطني صدا منا معها وحو حجك كورنشري كتب عليكم 3 أصفار صدح سفر بواجب بدون قاعدة المسلمين تي سفر كحجك يمدك عمره يجهادك في سبيل الله سفر هذا كوردان واسك سنة أما هو وحسك بنان أما هو اسك تمشلين كله لكن صدح سفر أيوه هو واجب حجك إن لو سفره عمره إن لو سفره إيوه جهادك إن لو سفره لو دقاقه وابو حود معي إن بلد والكستو مسلمين أي جوجان أوده سنة كستها كسو حجين ترى أنت عليك أو ترى وجوي سيد هذا اللي يكون جوي سمنا رك كي أنت هكتي مادو سومالي أنت سلوا قول ياي سيد قول يهان يدين قميستان وكله يقول يهان يدين قولي أنت هتماد وحود معي وحوار كحج هذا كمان يريهين هي وكلة عمر إلا بدي وربكون وحير إلا يريه هل كسل وجوده جيا عمر وحور إلا بدي دور قرب حجي وحوار كمسلمين يرى إيمانية بلد هبل وحوار كم إيمانين ويريهين وقدم حوض ضمعي إنه يداهدو بلد كستا ترى أنت هكير كم إيمان كرتو وركتو وصو صار ترى أنت هكير كم تسو حجي كرتو كدب صحابتي الله تليان أصلا وكفك راوش وحوري حل حجي دوك يا إيمان أيه تبرتو ذي كحران تهاي أدو وحبها كو قصبين مركز حكوجري لو تركوه لجاهدناهم كما نجاهدهم على الصلاة والزكاة والله هذا حجك كتجا وإيمان وياه وأنكون جهادها يا بور صار أقول جهاده إنك الصلاة ده كتجا أم الزكاة الديلة مركلا وحلوش يجي عراق ضرف كذا قيوة كمدة
dad xajka la iman karo oo awoodi karo soona safri kara dhaqaaliya saaye saadna heli kara oon soo xajinaynin baa looga sheekeeyey markaasuu yidhi haddii la hubsay nimanka ayada ah la darabtu calayhim اljizya wallaahi ma ulaa'ika bimuslimiin wallaahi ma ulaa'ika bimuslimiin baa laga wariyey riwaayaat dacfi ku jiro wuxuu yidhi dadka hadday sugnaato hawsha ayada ah sidii yuhuudiga nasaaraan jizya ku qorahayaa kuwa muslimiin ma aha ninkii xajin waaya isagoo awoodi kara waddadu ay nabad tahay saayida haysta caafimaadkana haya nimankaa ma aha muslimiin buu odhan jiray meel aga buu ka istaagay waxyaabaha diimiyada muslimiinta uu qabto waxaa ka mid ah xaggana muslimiinta u dareensiiyey cilmiga in la barto culummadana la xurmeeyo khilaafka iyo muranka iyo ismaandhaafkan laga fogaado wuxuu odhan jiray dhallinyarada wuxuu ku odhan jiray tafaqahuu qabla an tusawaduu war wax barta oo fuqaha noqda oo cilmi diin barta intaan ugaasi laydinka dhigin intaan sayid lagaa dhigin ama tal laguu dhiibin ama nin oday adaa noqon wax baro hadhow markaa magac xil laguu dhiibo oo reerka nabadoon lagaaga dhigo ama sheekhba lagu meel lagu fadhiisiyo ama macallinba lagaa dhigo waxbarasho isku dhammaatay waxda jaanista wad wax ku barta wuu yaraanayaa amaaba sheekhnimo labistay goormaad wax barataa koofiyad weyn baad gashan xabadka waad salaaxi waad neefsanba ardaynimadii waad iloobiba allahuma maalin waana meel ka socto inaad ka fadhiisatood xoogow dan aad leedahay mooyeene ardaygii rabayaysnaa ee aroortii karlahayay ee habeenkii guurahayay ee rafaadahayay warka waad sujinaysaa tafaqahuu qabla an tusawaduu intaan ru'asa laydinka dhigin madax mas-uuliin xil laydiin dhiibin xilkaasoo laydin mashquuliy waxbarta odhan jiray tafaqahuu fi diin wardiinka fahma waxbarashada faham ku dara kunuu awciyata alkitaab wayanaabiica alcilm bulshadu ku dhihi jira war waxaad noqotaan kitaabka qur-aanka weelashiisii weelanayey fahamkiisii iyo xifdigiisiiba war cilmigu ila uu ka burqada noqda wakti ku bixiya diinka barashadiisa si gooni ahaaneed qur-aanka suurada gooniyuu tilmaami jiray mararka qaarkood tacalamuu suurat albaqara wa suurat الnisa wa suurat almaa'ida wa suurat alxaj wa suurat الnuur faina fiihina alfaraa'id buu odhan jiray faina fiihina alfaraa'id suuradaha si gooni u barta fiqigooda iyo tafsiirkooda waa suurat albaqara suurat الnisa suurat almaa'ida suurat alxaj oo axkaamu alxaj walcumra aad oga hadashay suurat الnuur oo axkaamu اlistidaan iyo dumarka iyo cawraadka aad oga hadashaad garanaysaa iyo xukumka kitaabka xaakimiyada faina fiihina alfaraa'id buur suuradaha si goonaha loo xifdiyo fiqigooda iyo tafaasiirtooda wuxuu odhan jiray tacalamuu suurata baraa'a wacallimuu nisaa'akum suurat الnuur suurat tooba si goona u barta waa suuradda inaad munaafiqtaad ku ogaani inaad munaafiqta in kale kuu soo bixi waxyaaba badan markay ka hadlayso suuratu anfaal iyo baraa israaciya oo barta odhan jiray haweenkana si gooni ah suuratu nuur u bar xijaabka iyo cawraadka iyo isti'daanka iyo axkaamu lusr fiqu lusra ku jira oo culus oon meel kale lagu sheegin gooni u bara gabdhaha wuxuu odhan jiray acribu alqur'aan qur'aanka si fiican u kala dhigdhiga luqa carabiya fasiixa ah oo ciraaban oo sarfigeedii wadata oo naxwadeeda wadatay ajrumigeedii iyo balaaqadeeda ku akhriya fainahu carabiyu qur-aanku waa carabi fasiixa ma aha cajami tacallamu alqur'aana wacmaluu bihi qur-aanka barta oo ku dhaqma umarada wuxuu u qori jiray oo wareegto intuu soo saaro carabiyada waa in la barto laaxinka waa in la iska ilaaliyo maalinbu wuxuu soo maray qolyo meel fadhiyo fara badan oo toog dhisanaya meeshaasoo kadhi waxay dhigteen taargad bay dhigteen hadafay togan hayaan kab bay xaggu kala dhigteen hal mar bay marka saarahayeen leebka sii wada daynayaan si oo baas ay u ridayaan leebkii wuxuu waa idin sidee marka la toog dhisanhayo la toog baranhayo waxaa la rabaa in nin la iskugu baxo aad xabad tuurto haddana mid kala tuurto oo kii hore fiiriso waxaad khaladay waxaan baaska ridaysan muxuu ah waxay dhayn yaa amiir fa innaa qawmun mutacallimiin bay yidhaahdeen innaa qawmun mutacallimiin qolyo wax baran hayaanahay meesha mutacallimuun laga rabay waxay innaa qawmun mutacallimiin markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay toogxumadiinni iyo toogdhisadkiinni xumaantiisa waxaa iga daran laxnigiinni xumaantiisa iga daran wa innaa qowmun mutacallimuuna dhaha
حقيت كنتن جمع مذكر سالم كان لكرد بهايو يجي هذا اللي بتاعها متعلمون ده طيب من اللي قال هو ولا قال يا ماشي ابو النعبه مالي مال ما كميدا وراق سو مثلا شيء سو قري كاتب كيسي عن يريه سوى وحو قري الى امير المؤمنين الخطاب من ابي موسى الاشعري من ابي مش من ابو موسى بسقر من ابو موسى عمر بوراق اخري الله كذا كذب وحو قري سلامت بكجه اذا اتاك كتابي هذا فضل كاتبك صوتا بولي واعزله عن عمله ابي موسى وراغ اذا ممكن كسو غادو نينكا كاتبه كوا قراع برورت قولكم معيه قالك كسار كدبنا شغله كقا محو ايدها هي كليه ابو اول الربي انه ابي كدغو ما اوغلين ان قرانك لا لو اركو ما اوغلين عربيه iyo adabka in lagu ciyaaro carabiyada naxwada aad buu ugu dadaali jiray maxay la quraanka ninkii afka laxni afka haleeyay quraanku haleynaya diinta buu ku ciyaaraya wuxuu fari jiray ummadda inay bartaan taariikhda hore ee carbeed diin xumada ku salaysnay si ay u ogaadaan islaamka macaankiisa وبضدها تتبين الاشياء بالليلة اسلام معانكي iyo maydhixi waxa garta ninka gaalnimo yaqaan dhaqankeedii xumaanta ay taageeranay wuxuu ka digi jiray marka la baranayo jaahiliyada taariikhdeedii hore la baranayo in la soo guuriyo wax abuuri kara uqdad utun ee qareebi kara iska in la oran jiray jannib الناس احاديث الجاهليه فانها تذكر الاحقاد وتنشئ الضغائن وعظهم بايات الله منشط للسماع وحورن جري كديره جاهليه اخبارته ورركيده كيني كرا عقددي وتنتي اي قدر ريبي كرا كعين كرا اي قهورو دوغنيد ابها واغان ديل اوغا واغان ساسميني ريبل واغان جبينay مودات isku dhaxaleen waa laga ilaaliya hatta Soomaaliya ka ilaaliya fadhida marka ta fadhido dagaaladii dhaxmaray hawiya darad ha sheegin wixii abgaali habigi dhaxmaray ha soo qaadin حوالي هبقير وحده هالشيء مريحان واقي صاد وبابيسات الصوماليين اسكو تagteen lama soo qaado qoliyo dhul baanteen la gumaadi koonfurta dhawaal lagu gumaadi lama taabto hawlaha wala laga leexdaa maxay ninkan u sheegay laga yaabaa awowgii in meesha loogu dilay aabihiina disheen baba laga yaabaa oo bishinta uu qaniin oo caawo ku biraba Soomaali dhaxdeeda dan guud ka hadad Soomaaliyiin iyo hawlad guud taagno dibku xumaaya dhaxmaray lama soo qaado ilaa limunaasaba laga maarmi waaye oo marka ayagu lagu waanayo mooyeen laana utumbu beeri ee quberi boog xogo qabowday buu danqaya erayga asaga waa hawsha ay sameyn jireen qolii yahuuda markay rabaan isku daraan ansaar maxay sameyn jireen dagaalku waxay soo qaadayaan aw si khad isku baabi'iyeen xabu bucaaf bay soo qaadayaan si ay marka nin walba haddaan bilaabaynaa بهالس القبوجي حقوق ضمبس لا صاري لما فرفارو افك ايمانيس حكمه سيدنا عمر بكمتا ورتاريخ ادب كودي قبيضودي وحو مده انفعي اوغا شيكay laakiin ka fogaada meelaha bambaanooyin ku xabaalay miinooyinka ka fogaada hadii kale way la qarxaysa ummad badan bay baafaynaysa sacd waqas wuxuu u qoray xukunka aan soo sheegnay maxaan ku sameeynaa ummadda quraanka iyo diinta ku waaniya intay fahmo wahayaan xogo firfircoon nashaad u hayaan dadka muxaadarada lagu dheeray wada hamaamsanayaan quraanka waa laga cajisay marka qaarkood waa loo tartiibiya asaga Umar ummadda waanin jiray markuu arko xogan la yardaalay intuu muxaadarada joojiyo dhijin in geedahan beeraynay beer weyn oo meesha ku taalay u dhii nin walba god ha qodo geed ha beero xogo marka la dhido la daawdi hataa inuu fadhisiyo aan xadiidka sii wadnay saaca bi saaca way idagaysta wixii baan sheegay maxaa kitaabka quraanka loo kacayaa hawshu ma ah dadku bini aadamku way daalahayaan way hamaamsanayaan wala cajisayaan waa loo bedela mawduuc sidaas uu sameyn jiray wuxuu ku dadaali jiray ninka culumada ama ardayga wax baranaya inuu tawaaduc ku dadaalo amri jiray aadna waa ugu dadaali jiray tawaaduca uu ka fogaado inuu ismahadiyo isxamdiyo asagu wax ismoodo isla weynaado nin la oran jiray al-Harith al-Kindi يا مال أيوب وحوري عمرو إن مساجد لقى استاجوا أمضى اللواني عمر ونعبان شري قاس مو قليل هل نبوا فصح تميم الدار اللي صبعنا هالمرة بيستاجر تابو تميم الدار صاحبه قرن إزار
أسبوع هل مالين بد استاي كرتا وضم هذا الكديرينين سوون كلمة وضو انتو استاي بعد المغرب بعد الفجر وضع عمر سو قالنا هو فريسين جري إنه عمر هوش النعبي بأوجيه عمر محاجة المحل نعبت أمد إن لوانيو أو قلبي ولا لقبوتشيو أو قلبي قال لوتش العيو أو للروحو أو للدنقو وحوليه كان هذا هيا كو أفوبي وديجر مركو حقوق محاضرة في عن شديو أساقو حسمده بلايو من بلا كدعدي oo wax lamida uusan jirin oo barakaysan oo kalimiisu ay daawo tahay oo ilaahay cirka ka soo diray oo ummaddu asaga jeceshahay waxba ku galiba adoo is afuufibaad arki sidii masaluugaladi is afuufay masaluugaladi mataqaanaa reynug bay qolyo dhaa baashan abeesada u eegee afar lood ku socota meel labsata oo kalon baad noqon wuxuu yidhi inaan tolkay waaniyaan rabaa ayaguna waxay rabaan inaan waaniyo quraankan aan u akhriyo xogo waan wax u sheego qaala umar wuxuu fa inni akhafu alayka an taqra alayhim wa taqassa hatta tarahum minka kasturiyya fayaj'alaka Allah tahta aqdamihim biqadri dhalika waxaan ka baqayaa intaan ku fasaxo oo waana la istaagto oo door bari isku ka hagaagto inaad xogo cujbu ku galo ismahadiso isbuufiso ood moodo ayagana ka sarreyso wax dheerta tagan ku fadhiyo wax ku dhigaysanaya ee muslimiinta ee wacdiga iska raba iyo waanada inaad wax dheertaad moodo waaga dambe ka afmalan tahay ka cod fiican tahay luqada ka taqaano ilaahay ooga dhowdahay diinta ka taqaano adigu mooyeen daaci kale uusan jirin ummadan adigu lagu dharqabtay shaydaan baa ku afuuf nafba wax ku yeedhin waaga dambe waxaad u qadanaysaa inaad tahay kulligood baad ka sarreyso adigu intaana intuu shaydaanku rabo markaasuu ilaahay ku dullaynaya waaga dambe oo ayaga ka hoos mara ayaga ilaah u darajaynaya taasaan kaaga baqi buuri marka wasalaamatu laa yucaadu laha shay warwaanadan aad wanaagga ka doonayso haddaad balaayo bay ka dhalan iska daa aad buu uga dagaalami jiray asaguna culimmada aad buu ixtiraamay hawshana waa ka deerin jiray waxaa ka mid a maalinba wuxuu arkay ubay ibnu kacab oo socda oo niman xer oo talaba oo taabiciin daba ordahayaan oo su'aal weydiisanaya asaguna uu soo istaagay عمر أشيب ولا سوري أبي بسوقر وكاسو قراعي قلبه كبلابي مركز أبي وحول عمرو وحاط من سكافيوس عن عمد فعلته كس يماك بنكو قراعي عرب كاس هذا ما حد يقول يدريسه وحاط من يسوري وخلط ضد كان المسلمين تدين كأدبريس هذا جانا يسنو يستاق وفريسو وحبر في تواضع ودقن ودلقل وعلوم الويق النصامير هذا انجاز هنا كعير دارو كدقاق لكن لو قد وصعده ها حديث كان محوها بس كسر سعود وحوري هوشا هولا يلي كرم عكيري أما تعلم أن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع ومذلة للتابع waxaad samaysay aduna fitna kugu tahay kibir baa ku gali isla weynin baa ku gali gurur iyo cujba ku gali ismahadin baa ku gali kana ku daba socdana wad ku dulaysanaysaa muslimiina dulaysaa ku fasaadi jumbu u garaay ma ogalay ninka ardayga in la ixtiraamo la qadariyo talibka ayuu rabaa ninka caalimkana tawaaduco oo isla weynaan umada kala hadli jiray wuxuu ku oran jiray inna akhwafa ma akhafu alaykum i'jab al-mar برأيه ومن قال أنا عالم فهو جاهل بورنجر وحن آدي هذا وقبق ينودن باب علومه وحاول يرجع برنها يو إن هذا اسمه هذا السان تيسو ديق ذي نيجي أنا مضوا أقوم بأنا عالم أنا وجاهل بورنجري هذا علوم الصوماليين وحنصوص الروريب تقول يا إذا كان علوم الصوماليين أنا أقول علوم السلفيين تا يا إذين بتوش هذا والناس هو اسمه عابها هذا إنما كان سياسيين تسمع عوان هذا لما أقول هو كان الناس قاعد يسمع عواني أسمع احترامك واحترام العلوم هذا نين لما يدم تشرين ودوتي ابن عباس ويل يرأى أيوة فريسين شر أكابر الصحابة جوجان الأنصار والمهاجرون أكابر قريش مشايخ قريش فرديان فريسين شرين علم يسون كل احترام الجري وين عضات مرة بدون سؤال لو يدي امتحان سيدي إذا جاء رسول الله مكان لقوا امتحانات قرنيسة معلم المها كميدا اسوق امير المؤمنين يوح زيد ثالث وحوقه بعض مالو كدودن هو واي غوريغيسي بو كرادسدي زيد وحو u tagay gabadh adoona oo asagoo laha timaha u shanlaynayso inta madaxa u dhaqday u feerayso
markaasuu yaa amiir almu'miniin maxaad u soo lugooday maxaad igu soo fariin diri weyda anaaba ku imaan lahaaye inama alxaajatu lii buuri danta anaa lahaa inaan ku imado waa aniga amiirka u kaadi ninka danta la waa kuma waa aniga inaan ku imado wey ii imaan mayso adugu midda kale dantayda waxay i joogtee horta shanlaysiga ha lagu dhammeeyo dhammayso madaxaada inta aad dhammayn hadli maayo gabadhii baa hawsha boobsiisay dharkiisa buu xidhay haye amiir hawl buu u dirsaday ixtiraama lilculamaa bay ka ahay aad buu culimadu xurmayn jiray waxaa ka mid ah qisadii dhex martay mucaawiya iyo abulwaliid cubaad ibnu saamit iyo mucaawiya ibnu sufyaan amiir shaamka waxay isku qabteen masale diineed oo dahab iyo fido ku saabsan mucaawiya wuxuu aaminsanaa dahabka caydhiin ee caadiga ah iyo midkan lacagta danaaniirta in laisku gadi karo aaminsanaa iyagoon waxba la miisaamin in laisku iibin karo kan badeec ahaan aad u soo iibsani dahabka aad bixini fidada caydhiin ee badeec ahaanta ah ee khaamkeen la shiilin iyo middan daraahimtan laisku iibin karo aaminsanaa abu cubaad ibnu saadun wuxuu ku yidhi waa xaaraan waa ribo dahab waa dahab ama lacag ha noqdo ama dhagaxya meel fadhiya ha noqdo ama dhiilal iyo haama ha noqde mar haddii laisku gadayo waa in la miisaamo waa laysla garaama ekeysiiyo fidaduna fida meelay ku timaada waa isku mid tayada shiilan tayada caydhin waa isku mid mar haddii laisku gadayo waa in la isla ekaadaan tii buu ka diiday abulwaliid marka wuxuu yidhi anugu kula joogi maayo waa la murmay marka la murmay ninkan amiir hayay saxaabigu wuxuu canaantay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay beled aad ka taliso aniga igu leedahay awood iyo gacan inaan ku noolaanayn wuu ka soo tegey madiinu iska yimid madiinu maalmo joogo cumar baa arkay cubaad oo dhex taagan madiino war ninka waa kuma soo abulwaliid ma aha cubaad ibnu saamid haa maxaa ku keenay wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin shaam waan ka soo tegey iyo dimashqa waan ka soo tegey maxaa jira mucaawiyaan masale isku qabannay waa ku heshiin weynay awood buu ii sheegtay waan ka soo tegey buuri min culamaa'i saxaabanu ahaa dee abulwaliid waraaq buu ku joogsaday wuu canaantay mucaawiya dhagaha ka raacay kadibna wuxuu ku yidhi laa imrata laka calayh wuxuu yidhi abulwaliid waad laabanaysa suuriyaad ku laabani shaam baad tegi dimishqaad tegi meeshuu fadhiya ka tali mucaawiya tegaysa kumana xukuma asagu waxaa u isma dowladda dhexe hoos imanaysa dowladda dhexe waxaa lagaa xukumaa madiino waxaa doontana samee buuri ummadda khayrka u sheeg far hay-atul amri ka noqo mucaawiya sanka fartaga geliya asaguna kuma xukumo bulshadii uu ka tirsan yahay gobolka waxaa ka taliya amiirka ah mucaawiya waxaan ka ahayn cubaad ibnu saamid abulwaliid waxaa xukuma dowladda dhexaa laga xukumaa ee sare waa ninkii ugu horreeyey samee leh hawsha iyada cumar fi taariikh marka la soo baaray buugaagta iyo taariikhdii ummadihii hore oo dhan in la yidhaahdo bulshada nooc qayb ka mida waxay hoos tagtaa madaxweynaha sare oo ninka gobolka ka taliya ma xukumi karo waa hawl cadaaladiisu ay keento wuxuu ka baqay haddii loo isgeeyo inuu haddana ku xadgudbo caalimku markuu inuu xorriyad helo kalsooni uu diinta ku fuliyo madaxdana uu ku canaanan karo u helo wuxuu yidhi laa imrata laka calay waxmil innaasa calaa maa qaala cubaada fainahu huwa alamru intaas uu qoray wuxuu yidhi horta ma xukuntid lambar kow lambar labo cubaada wuxuu sheegay baa saxane ummadda ku qasab ummaddana mari aduguna mar dambe hawsha ma samayn kartid wuxuusan rabinna ma yeeli kartid buu ku yidhi way noqotay wuu samayn jira hawsha ayadaa nin walboo dulan sheegto u yimaado cumar amiirka wuxuu dhihi jira waan kaa casli ma hoos iman kartid annagaa xukunna madiina laga xukumaa kuufa iyo basre iyo dimashqa lagama xukumo iyo falastiin iyo masar dhaqankaasuu lahaa ixtiraaman lilculamaa wuxuu kula dardaan jiray culammada kula dardaarmi jiray oo odhan jiray cilmiga barta ummaddana bara idinkuna waxaad barataan alwaqara xasilooni deganaansho edab iyo akhlaaq cilmiyeesha dadka aad wax baraysaanna u dabacsanaada walaa takunuu jabaabirata alculamaa'i falaa yaquumu cilmukum bijahlikum nin caalimo isla weyn oo mutakabira oo ummadda aan xurmayn asna lama rabo cilmigiisu iyo jahligiisuna jahligiisaa roon buu odhan jiray wuxuu aad iyo aad uga dagaalami jiray in fatwada lagu degdego ama la isku khilaafo waa qodobka igu dambeeya fatwada in lagu degdego
ama la isku khilaaf aad buu uga dagaalami jiray muslimiinta in la midayo jeclaa iskhilaafka dhibi jiray nin muslimo muslimiinta soo maray oo waxdada ka jecel bacda rasuulillahi lamar umar midnimada wada socodka dhantaalka iyo fadqaada aad buu u necbaa maalmaha ka mida ayuu wuxuu qabiisa ibnu jaabir la yiraahdo ayaa asagoo muxrimo soo xajiyay buu wuxuu dilay ku khaldamay ugaadh garanuug buu dilay ama cawl buu dilay kadib wuxuu yidhi sayidina cumar oo soo xajiyay buu inuu su'aal weydiiyo cumar baa loo tilmaamay muusan aqoon waa loo tilmaamay cumar buu yimid waxaa la fadhiya cabdiraxmaan ibn cawf baa la fadhiya neefku uu dilay wixii u dhigmayay baa ay ka tashadeen cumar iyo cabdiraxmaan cumar baa wuxuu yidhi neef adhi ah ma ku xukunnaa maxay kula tahay mise lo' baan gaadhsiinaa garanuug ama cawl ma adhi bay raacsan tahay yaa u dhigma mise looda yararka aaranka ah aduu waxaa laisku waafaqay labadii saxaab isku waafaqay in neef adhi ah lagu xukumo labadii ninka qabiisa nin la socday baa soo ma jiray kii la socday wuxuu yidhi qabiisow soomaaliyad amiirulmuminiin intuu su-aashii garan waayey iyo ninkii la fadhiyey weydiiyey cabdiraxmaan ibn cawfa cumar baa hawshii maqlay wuu u yeedhay markuu soo fadhiistay ul ku bilaabay wuu garaacay markuu cabbaar garaacay baa anigan isku qaybi jiray buuri qabiis wuxuu yidhi yaa anu wax ma dhihin ninkanaa hadlay anu ma dhihin anu ma hadlin waad ka dhegaysatay buuri ma yaa amiirulmuminiin kama dhegaysanin waxba igama soo bixin markaasuu aniga idaayey buuri kadib wuxuu yidhi marka intaad xaramka ilaahay ku disho ogaadh iyo haddana marka laguu fatwoodo yaad rabtaa fadwada in laguu dabciyo oo si khaldan wax lagugu sheego oo shubaya lagugu jawaabo iyo tarakhiis yeeli mayna buur afkaada subso xaqa xayawaankana iska ilaali ma ogoleen hatta in lagu degdego waxaa kaloo hawshaa qabsatay abu hurayra iyo qabsatay abu hurayre ayaa waxaa la weydiiyey su'aal baa la weydiiyey su-aashii la weydiiyey buu ka jawaabay qaabkeed ku jawaabtay saasaan ku jawaabay buu low aftaytahum bigayri dalik la wajactuka buuri haddaad su-aasha ay ku weydiiyeen nimanka ayaga ah aad si kale uga jawaabi lahayd walla waa ku garaaci lahaa buuri wuxuu ka diidan yahay in lagu degdego fatwada leanna fatwada lagu degdego waxaa ka imanaya ilahay in lagu been abuurto القول على الله بغير علم شرك باك إيمان كرا حدقدو باك إيمان كرا زلة عالم ومدى يكونك متى كإيمان كرا وا خطر فضول ولا غفر صدا ولا غبارن دغا أقون تي هذا الله هي بسيل كذا مسألة ده ولا اسك حولها إن دتك لو جوابه ومن باب فرض الكفاية فرض عين بكو معها وهذا كو دام كو حول كعذر دارو هذا يكون قبصة مركا عينه ومسألة كلي اجتهاد كذا بالله بني maalmaha ka mid ayuu ka soo baxay masquul markaasaa yuu quraan akhris bilaabay isagoo musxafka aan taabanayno dusha ka dareeriyey nin la odhan jiray abu maryam alxanafi wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin low tawadacta cumarow maad weysasad intaad qur-aanka akhriyin buuri wuxuu yidhi cumar amusaylimatu aftaaka bihada buuri musaylimatu alkadaab miyaa kuu fatwooda inaan qur-aan la akhrin karin weyse la'aan إلا نيكا ريب بني حنيفة هذا كوريا خريبي مسلمة الكذاب وحكبقي وحن الأرض هايو إني كسو جيد دينتي مسلمة الكذاب ما أقولين اللي قدك دقو فتوى اللي قدك دقو ما أقولين هاد بوقت دقو على مجري إن لسكو خلافانا ونعبان جري مالما كمذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ابن مسعود بمسألة اسكو قبتي قفك مسلم كا هل مرة كليا سوق متوكن كرابة اسكو قبتي hal maro oo jeeni qaarsato ama aad hoosta ka guntanto ma lagu tukan karaa bay isku qabteen ubay wuxuu yidhi haa waa lagu tukan karaa ibn mascuudna wuxuu yidhi laba maraa shardi ah maro hoose iyo maro aad hugato oo garbaha saarato way ismaan dhaafeen sayidina cumar baa marka soo mara iyagii hawshaa ku murmahaya falaama uu canaanta horta iskhilaafkoodu ka xunuunsaday wuxuu yidhi innahu la yasuu'nii أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في شيء واحد من أي فتياكما يصدر الناس بور آد وحايد بتو حانوجسا إلا بس صحابي مسألة اسكو خلافات وهذا فتوى المسألة قابك أو فتوى كان هو فتوى ضي أمضوا لبدا فتوى تيقا بور إلا صحاباتي والله يدورنا يا علماتي
أصحاب رسول الله بالذين ليه بل هم دكتيبي كفولي ما مد ابن مسعود بيقاتان كفلان نسميه أبي بكفلان وحول كذب بوسود وحول أما ابن مسعود فلم يألو جهدا والقول ما قال أبي مسعود وادد عليه بوري والله أمره واجبيي لكن حقه حوي سيدا أوشي أبي هل مرة كفلان أما كانت جيني قارسته hoos dad ku xiraatana way ka asixin macal karaaha maxaa yeelay qaarka in la qaawiyo ma wanaagsano biijmaac almuslimiin ma wanaagsano lagu waxa laga hadlayo ma ku asaxaysa laga niqaashay xataa in adoo madaxadu qaawiyo aad tukataan wanaagsanayn biijmaac alfuqaha ogaada hawsha ayada idinku madax qaawiyo madax qurdan inaad soo istaagtaan ma fiicno waa karaaha inda jamiic almuslimiin عامي نقو علماء نقو إمام نقو مأموم نقو مدح وح صارت عمامات صارت كوفية صارت قربها اسكبدا أيضا حديث خاصة بكتمت أدبوا النعبانين صحابة الخلافة مالي ما كمدا يا صحابة وحيز ويدين عزل وحا اللي جاهدو دمر كما كان لو تقين بيها بنانك القضاء لحاجة ما الله سمين كرام مسمايا بيسكو خلافة عمر باهوش عقادي halka waxaa fadhiya rag murmaya niqaashaya kamida asxaabu badrin baa kamid oo bacd ridwaan markaas wuxuu ikhtalaftum wa antum ahlu badrin al akhyar fakayfa bin nas ba'dakum idinku reeb badara wa ahlu fiqh ahlu ilm rabbi idin doortay ba masala fiqh hada isku maan dhaafo ku kala tagay ummadda idin ka dambaysa maxay sameyn doontaa ma ogolayn aad buu u nicbaa iskhilaafkaas wuxuu aad iyo aad culimadu ugu caraabin jiray inay qudbo noqdaan dayasho dad mudan lagu dayan karo cilmigooda camalkooda wax walba wanaaga iyo horyaal u noqdaan hormuudna u noqdaan nin koreedka laba xaaja tasara ay qaataan ninka caalimka uu noqdo wanaag kasta ninka ummadda uga horeeya ee hormuudka u ah si loogu daydo wuxuu aad uga dagaalami jiray in camalkooda iyo cilmigooda iskhilaafo inay taraakiista iyo shubahaadka qaataan ruqsooyinka qaataan سادرت بمحل القدوة لا يترخص بلا فقه نينك أمضى يكون ديانيسو رخصوين كأنه وقت قاتل ما فعن مركو وليبا معاملات كلا مرة يا أدرا حلالي حرام لمرة وحادي عجة مرة قاركوت صان لو قدك دينا فتوى إن نينك مفتقى أو امتحانه نين أربد رنجري يا مال أيمت أيوه والله فردي أربد كاسي نمان كالي ayaa sigi arbada gooni niman uu sheekhu ahaa ay la baxeen waxay dhaheen anagoo soo socono muhrimiin ah ayaa waxaan dilay maan salugulay baasha dabada la yiraahdo ayaan dilay dhaheen maxaan ugu waajibay wala soo orday su'aashu Umar buu keenay xuri yaa amir muuminiin nimanka saas ay leeyahay hada u fatwo adaa iga khayr badan iga aqoon badan u fatwo buu adaa ramba sheekhu ahaa fatwo aan ku dhageysanayaa yaa amir muuminiin adaa iga aqoon badan iga khayr badan nimanka u fatwo buuri wuxuu aniga taskiye kuma dhihini waxaan ku amray inaan nimanka u jawaabto jawaab baan ku ori musaasaha way ahaysataay wuxuu waxaan fatwoonayaa ilmo yaroo baraar ah oo marka hooyadu ka go'ay hadda bi cabaalka iyo inuu daqdaaqa bilaabay baan ku xukumay buuri masaloogeedii ka dhigay neefku u dhigmaayay lagu gudahay wuxuu si fiican baad yeeshay waxaan fiirinayay buuri fiqigaadii fidintay dhan tahay haddii kaa mufti masii ahaanaysid aad buu uga dadaali jiray in loo ilaaliyo muslimiinta fatwadooda la mideeyo aan la iskhilaafin ninkay wax ka qaadanayaan la hubiyo la mooliyo intuu qodan yahay aqoontii fiqigiisu cumar arrimihiisu ee ku saabsan dadaalka diineed iyo waxqabadkii arrimaha diinta uu ka qabtay wax la soo koobi kara laakiin intaasaan ku qabiraynaa بري وحي كبلاودو ان شاء الله تعالى انو دمنا سياسيديسي iyo dhanka akhlaaqdeena taaman doona in sha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala